لغة غراء هي الأجمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد تحية واحترام يسرني أن أرحب بكم إلى الدرس الثاني من الوحدة الرابعة من كتاب تعلم العربية بطريقة سلسة وسهلة. وهذا الدرس شأنه كغيره من الدروس السابقة، ويهدف إلى مساعدتكم على التحدث أو على التعلم المزيد من اللغة العربية وكيفية استخدامها في المحادثة اليومية. أيها الطلبة، إجادة التحدث اللغة العربية ليس أمرا سهلا، وتتطلب فهما جيدا لقواعد اللغة العربية، كما أنها تتطلب التدرب باستمرار. وفعلا أعتقد أنكم إذا تتبعتم هذه المهارة، مهارة التحدث اللغة العربية، وتدربتم معنا ثم تدربتم معنا كمعهد اقرأ، ثم تدربتم وحدكم أو مع أصدقائكم وطلبتكم، كلما سمح لكم الوقت فإنكم ستتمكنون من تحسين معرفتكم بطريقة التخاطب باللغة العربية الفصحى. أيها الطلبة، سنتبع هذه المهارة. أولا نقرأ المحادثة باللغة العربية، ثم نقدم لكم بالترجمة الصومالية حتى تتضح لكم معانيها. عشرة waxaan doonayaa in aan haafan haaf ka dhigo oo aan qayb ka midana luqada carabiga aynu ku soo jeedino, qayb ka midana aynu Soomaali ku sharaxno si aynu u yarayno Soomaaliga, Carabidana u yar kordhino, oo aad markaa ula qabsataan sharaxa iyo waxa laga hadlayo casharada. Marka la socod wanaagsan casharkan inoo soo socda, la socod wanaagsan si aynu uga faa'iideysano. waayahay qaybteeni kalena waatan. marka hore carabi baynu ku akhriyanaa, marka aynu carabiga ku akhrinana af Soomaali ayaynu ku macnayn doonaa insha Allah taala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Cabdirasaaq iyo boos baa wada qaadanaya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيو كجوابي بوسنا. عبد الرزاق أيا وحيري اسمي معلم عبد الرزاق، ما اسمك؟ مقعيقوا مع عبد الرزاق مقعا. اسمي معلم محمود بوس. أيو كجوابي بوسنا. مرحبا بقدومك في هذه العاصمة، عاصمة الصوماليلاند هرقيزة. كسودو عاصمة دي صوماليلاند هرقيزة كسودو. أي كجوابي بوس. وبزيارتك في هذه في هذا المركز، كنا سودو مركز كان بوقشة ديسا نقصوا بوقتي مركز اقرأ. وبمشاركتك إياك قيب قالك قاعد كسو قيب قشي في هذا البرنامج. برنامج كاسو طلوا محي برنامج تطوير اللغة العربية أبناء الوطن أيا الله هذا، وبرنامج لغة هرمرين أيو لغة عربية لنا الصين أيو أي قادن أيان أبناء الوطن ضدك وطن كان أودا شيء سي اللغة عربية أما مهارة تحدث اللغة العربية oo mafquuda fi mantiqa ah ay kor ugu qaadanto wadanka ku yar. waayahay wuxuu yiri Cabdirasaaq أنا سعيد جدا
anigu aad iyo aad ayaan u faraxsanahay liwujuudi huna imaanshahayga aan imi halkan somalilan caasimadeeda hargeysa gaar ahaan markiskan markis iqra imaanshaha aan imi runtii aad ayaan ugu faraxsanahay kayfa kaanat rixlatuka bal ka waran rixladaada ayuu macalin boos weydiiyey cabdirasaaq macalin cabdirasaaq wuxuu ku jawaabay kaanat rixlatii tayiba rixladaydu waxay ahayd mid aad u qurux badan oo wanaagsan غير أنني متعب الآن جدا لكنse hadda aad baan u daalanahay ayuu yidhi boos baa markaa wuxuu yidhi idan haddaba maadaama aad daalan tahay hayaa binaa ila albeyt ina mari gurigaynu teganaa alusratu biasrihaa dhammaan qoysku tarqabu fii muqaabalatika waxay doonayaan inay kula kulmaan xaafadda oo dhan baa jecel oo le macalinka noo keen inaynu la kulanaanu doonaynaa waa tarxabuka way ku soo dhaweynaysaa xaafaddu gacmo furan bay kugu soo dhaweynaysaa waxaan ina mari shukran lakum ayuu yidhi hayaa bina ina mari shukran lakum waad mahadsantihiin waana aydan aniguna sidoo kale arqabu fii muqaabalatihim laftirkayga waan jecelahay in aan la kulmo marka casharku wuxuu ku saabsanaa xiwaarka noocaasa aynu ka wada faa'iidaysananay idinkana waxaa laydinka rabaa in aad sidan oo kale aad tadbiiq camaliya u samaysaan oo aad si injiinka u wada qaadataan idinkaiyo asxaabtiina kale shukran lakum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu